kulanti wacan oo wanaagsan daawada meel walba aad joogtid kusoo dhawow mar kale ay macluumaadyo la xiriira barnaamijka aad iga barateen xiliyadan oo kale arrimaha siyaasadda iyo falanqaynta sirdoonka. inta badan barnaamijkeena waxaan kaga hadli doonaa macluumaadyo ku saabsan waxyaabaha loo soo gaabiyey hay-adaha sirdoonka ee dalalka Ingiriiska, Ruushka iyo wadamo kale oo caalamka ah. waxaan kula wadaagi doonaa 10 wadan ee dunida ugu adag dhanka sirdoonka iyo waxyaabaha loo soo gaabiyey magacyada qaar ee hay-adaha sirdoonka ee caalamka. waxaan ka bilaabi doonaa dalka 10aad annagoo u degi doona dalka 1aad ee ugu awooda badan dhanka sirdoonka. adduunkani waxaa ka buuxa oo ka socda loolan adag oo aad u xoog badan, kaasi oo wata dhibaatooyin tiro badan. sidaasi awgeed waxaa markasta qasab ah in dowladda la ilaaliyo oo muwaadiniinteeda la ilaaliyo, sidoo kalena danaha dowladda la ilaaliyo. si taasi ay u hirgashaana waxaa lagama maarmaan noqotay in dowlad kasta ay yeelato sirdoon u gaara misna danaheeda ka talisa. in dowladda ay ahaato mid lagu adag ku taagan, islamarkaana ay ahaato mid deganaanshiyaha amni ku xoogan kana hortagta wax kasta oo qalalaasa amni keeni karaya, waa mid ka mid ah hadafyada ugu waaweyn oo sirdoonada adduunka loo aasaasay, kuwaasi oo kaalin mug weyn leh ka qaatay inuu wadanka uu ka ilaaliyo halis kasta oo ugu imaan karaysa gudaha iyo dibadda. haddaba waxaan maanta idiin soo gudbin doonaa 10 dowladood ee leh sirdoonka ugu xoogan dunida. Number 1 ama dowladda 10aad. hay-addaasi magaceeda waxaa loo soo gaabiyaa MSS. magaca MSS micnaheedu wuxuu yahay Ministry of State Security ama wasaaradda ammaanka qaranka. wasaaradda amniga dowladda ee dalka Shiinaha ama hay-adda sirdoon ee dalka Shiinaha oo MSS loo soo gaabiyo ayaa kaalinta 10aad ka soo gashay sirdoonada ugu xoogan adduunka, iyadoo hay-adda MSS ay jihayso dhammaan wakaaladaha sirdoonka ee China. waxaana MSS lagu tiriyaa mid ka mid ah sirdoonada adduunka ugu fiican. waa hay-adda sirdoon ee dowladda China. MSS waxay aruurisaa xog kasta oo macluumaad ah, kuwaas oo muhiim u ah ilaalinta amniga wadanka iyo deganaanshihiisaba. hadafkooda ugu weyn ee loo aasaasay waa ka hortagidda jaajuusiinta ama sirdoonada wadamada kale. si la mid ahna waxay baadigoob ugu jiraan dhammaan wixii cadow ku ah xisbiga shuuciga ah ee wadanka xukuma, iyaga oo ka takhalusiya cid kasta oo halis ku ah amniga wadankooda. hay-adda sirdoon ee 9aad ee ugu khatarsan dunida waxaa loo soo gaabiyaa DGES. DGES waxaa loola jeedaa Directorate General for External Security, oo micnaheedu uu yahay maamulka guud ee amniga dibadda. DGES ama DGSI waa 2 sirdoon oo dowladda Faransiiska ay leedahay, kuwaasi oo isla howlgala. waxay labaduba ay ka midaysan yihiin inay ka hortagaan halis kasta oo wadanka soo wajahda. halistaasi ha ahaato mid dibadda ka timid ama mid gudaha ka imaanaysa, sidoo kalena iyaga ayaa mas'uul ka ah ilaalinta amniga wadanka. DGES Directorate General for External Security sida sirdoonada dowladaha kaleba iyada ayaa ka mas'uul ah howlgallada arrimaha dibadda, waxaana hay-adan ee sirdoonka ah lagu tiriyaa mid ka mid ah sirdoonada ugu fiican adduunka waqti xaadirkan la joogo. waxaa kaalinta 8aad ee sirdoonada ugu fiican adduunka soo galaya sirdoonka dowladda Jarmalka ee magaciisa loo soo gaabiyo BND Bundesnachrichtendienst. waxaana hay-adan sirdoon ay mas'uul ka tahay wadanka inay ka ilaaliso halis kasta oo soo wajihi karaysa, islamarkaana waa inay helaan macluumaadyo kasta oo ay u baahan yihiin. hay-adda sirdoon ee dalka Jarmalka ee BND howlaha ay qabato waxaa ka mid ah inay la socoto dhaqdhaqaaqyada elektarooniga oo dhan, inay dhageysato dhammaan wicitaanada gudaha iyo dibadda, inay macluumaad ka soo aruuriyaan meel kasta, ha ahaadeen meelahaasi muqaadaraadka ama dhinaca hubka waxgumaada ama dhaqidda lacagaha ama dhinaca jiriimooyinka nidaamsan ama sidoo kale majaalka qaxootiga sharci darrada iyo waxyaabaha la midka ah. hay-adan ayaa intaasi oo dhan laga doonayaa. sidoo kale hay-adda sirdoon ee dalka Jarmalka ee loo soo gaabiyo BND waxay ka qayb qaadataa dagaalada macluumaadka ah, waxaana lagu tiriyaa mid ka mid ah sirdoonada adduunka ugu xoogan. hay-adda 7aad waxay noqonaysaa hay-adda sirdoon ee ASIS loo soo gaabiyo, waa ASIS, waana sirdoonka sirta ee Australia. micnahay u taagan tahay waa Australian Secret Intelligence Service. kaalinta 7aad waxa ay noo soo gashay sirdoonka wadanka Australia, kaasi oo loo yaqaano ASIS. waana wakaalad sirdoon oo Australia ka howlgasha, waxayna ay mas'uuliyadeeda ay tahay ilaalinta amniga wadanka. waxaa wakaaladani la sheegaa inay tahay mid ka mid ah kuwa ugu xoogan ee dunida, iyada oo weliba lala barbardhigo wakaaladaha Mareykanka iyo Ingiriiska. waxay taasi ASIS ka dhigaysaa mid ka mid ah wakaaladaha sirdoon ee adduunka ugu xoogan. hay-adda sirdoon ee 6aad ee ugu khatarsan dunida waa RAW, waa RAW. waxaa loo soo gaabiya sidaa, waxaana ay micnaheedu u yahay marka la qorayo Research and Analysis Wing, garabka baaritaanka iyo taxliilinta.
waxaa kaalinta lixaad inoo soo gashay hay-adda raw oo ah wakaalada sirdoon ee dalka indiya, waxaana sirdoonkan la aasaasay sanadkii 1968. mas-uuliyadiisana waxaa ka mid ah aruurinta xogaha dibadda iyo la dagaalanka waxay ugu yeereen argagixisada. sidoo kale waxay xogo ka aruurisaa xukuumadaha dowladaha kale iyo sidoo kale shakhsiyaadka ka mas-uulka ahba. hay-adda RAW ama raw waxaa sidoo kale inta ay la socotaa dhaqdhaqaaqa shirkadaha ajaaniibta ah ee wadankaasi ka howlgala, waxayna wakaaladan basaasiinteeda ku soocan yihiin iyaga oo aad u yaqaana taxliilinta iyo qiimeynta macluumaadka soo gaara. sidaasi awgeed waa kuwa si xoogan ugu adag ilaalinta amniga wadankooda. kaalinta shanaad waxaa galaya hay-adda ammaanka ee Mossad ee Israa'iil, waa wakaalada sirdoon ee howlgallada qaaska ah ee Mossad. waxaa kaalinta shanaad inoo soo galay wakaalada sirdoonka Yahuudda ee loo yaqaana Mossad. waxay wakaaladan la aasaasay sanadkii 1949, waxayna macluumaadkeeda ay tahay ilaalinta amniga gudaha, aruurinta macluumaadka iyo fulinta howlgallada sirta ah. sidoo kale wakaaladan waxay u xilsaaran tahay ilaalinta amniga jaaliyadaha Yahuudda meel kasta oo ay adduunka ay ka joogaan, waxaana ay basaasiinta wakaaladan dhaqdhaqaaqyo weyn ay ka sameeyaan gudaha wadanka ee xoog ay ku haystaan ee Falastiin iyo wadamada dibadda, gaar ahaan wadamada Bariga Dhexe. Mossad waxay horey ay ugu fuliyeen howlgallo kala duwan wadamada Bariga Dhexe, Aasiya, USA iyo Ingiriiska iyo wadamo kale oo badan, gaar ahaan kuwa qaaradda Yurub. tani waxay ku cadaynaysaa awoodda ay leeyihiin hay-adaha sirdoonka ee Yahuudda, iyaga oo sidoo kalena ka mid ah sirdoonada ugu xooga badan dunida. howlgallada sirta ee ugu waaweyn kuwaas oo ay fuliyeen waxaa ka mid ahaa inay soo afduubteen mid ka mid ah hogaamiyaashii naasiyiinta Jarmalka ee lagu magacaabaya Adolf Eichmann, waxayna kasoo afduubteen gudaha wadanka Argentine sanadkii 1960 iyaga oo usoo tahriibiyay wadanka Israa'iil, halkaasi oo lagu daldalay. macluumaadka Adolf Eichmann waana midka hadda inoo socda ee taxnaha ah basaaskii cajiibka ahaa. Mossad sidoo kale waxay shirqoolle ay ku dileen in badan oo ka mid ah mas-uuliyiinta jabhadda xoreynta Falastiiniyiinta, kuwaas oo aan halkaani lagu soo koobi karin. waxayna sirdoonka Mossad sidoo kale ay ka ganacsadaan macluumaadyada ay hayaan, gaar ahaana kuwa ay ka hayaan dowladaha ayna gaashaanbuurta ahayn. hay-adda kaalinta afraad ku jirta waa hay-adda FSB ee laga leeyahay dalka Ruushka. markii hore hay-addan magaceeda waxaa loo soo gaabin jiray FSS oo ahaa Federal Security Service, laakiin markii dambe ayaa loo bedelay FSB oo micnaheedu uu yahay afka Raashiyaanka marka loo eego Federalnaya Sluzba Bezabasnosti oo micnaheedu uu yahay adeega amniga federaalka. waxaa kaalinta afraad soo gashay wakaalada sirdoonka ee dalka Ruushka, taasi oo ah mid bedeshay wakaaladii sirdoonka ee Midowgii Sofiyeed ee la riday, waxayna wakaaladan mas-uul ka tahay ururinta macluumaadyada loo baahan yahay si wadanka looga ilaaliyo khatar kasta oo kusoo wajahan. sidoo kale waxay ka hortagtaa jariimooyinka nooc walba ay ahaadaan. sida ku qoran qaanuunka federaalka ee dalka Ruushka, wakaaladaha sirdoonka ee Ruushka waxay inta badan ay shabahaan ciidamada militariga, balse waxay kaga duwan yihiin in aysan tuutaha militariga xirnayn markii ay howlgallada ay fulinayaan, waxaana hay-adda FSB lagu tiriyaa mid ka mid ah wakaaladaha sirdoon ee ugu khatarsan dunida. markana hay-adda saddexaad waxaa kaalinta saddexaad soo gashay wakaalada sirdoonka ee dowladda Ingiriiska oo loo soo gaabiyo MI6. magaca MI6 waxaa loola jeedaa Military Intelligence Section 6 oo ah hay-adda sirdoon ee militariga waaxda lixaad, waxaana wakaaladan ay la howlgashaa wakaaladaha kale ee iyaguna sirdoonka ah balse gudaha wadanka UK ka howlgala. hay-addaasi waa hay-adda kale ee la yiraahdo MI5 iyo sidoo kale sirdoonka wasaaradda difaaca ee DI, si lamid ah xarunta isgaarsiinta xukuumadda ayay la shaqaysaa wakaaladan. wakaaladan MI6 iyada ayaa sidoo kale ka mas-uula ururinta dhammaan macluumaadyada qiimaha u leh xukuumadda Britain, waxaana ay wakaaladan ay haysataa basaasiinta ugu xoogan uguna fiican dunida. waxay caan ay ku yihiin howlgallo sir ah oo ay ka fuliyeen gudaha wadanka iyo dibaddiisa. haddii aad daawatay filimada laga matelay James Bond, dabcan waa taqaanaa wakaalada MI6, iyadoona sidoo kale wakaaladan caan ay ku tahay adeegsiga tiknoolajiyadda casriga ah iyo sidoo kale gabdho qurux badan isla markaana loo tababaray howlaha basaasnimada. waxaan filayaa inaad horey u ogaateen macluumaadyo ku saabsan aktarka weyn ee James Bond oo aan horey kaga hadalnay macluumaadadiisa iyo waxyaabihii uu soo jilay. kaalinta labaad waxaa ku jirta hay-adda sirdoonka ee CIA. waxaan filayaa inaad tani aad garanaysaan maadaama hore aan macluumaadyo badan kaga soo hadalnay. waa Central Intelligence Agency ama xarunta hay-adda dhexe ee sirdoonka ama wakaalada dhexe ee sirdoonka Mareykanka.
kaalinta labaad ayay soo gashay hay-adan oo CIA-da waana mid ka mid a wakaaladaha ugu caansan uguna xooga badan sidoo kalena ugu weyn uguna qarashka badan adduunka waxaana wakaaladan ka howlgala kumanaan jaajuusiin ah waxaana howshoodu ay tahay ururinta macluumaadyada ay u baahan yihiin kuwaasoo xiriir la leh amniga gudaha iyo kan dibadda Maraykanka. CIA-da waxaa sidoo kale howlgalla sir ay ka fulisaa meel kasta oo adduunka ka tirsan waxaana wakaaladan la sheegaa inay tahay wakaalada qarashka ugu badan ay ku baxaan adduunka kaliya waxaa ka qarash badan wakaalada NSA oo iyada qudhayda CIA-da u adeegto balse qarashka guud ee wakaaladan ayaa ka badan 30 milyan sanadkii waxaana taasi ay ku tusinaysaa sida wakaaladan ay u xoogan tahay. kaalinta koowaad waxaa ku jirta hay-adda sirdoon ee ISI iyadana waxaan filayaa inaad haysataan macluumaadkeeda oo aan horey kuugula wadaaga macluumaadyo ku saabsan hay-adan. waxaa laga yaabaa inaad isweydiiso waa tuma wakaalada ka weyn wakaalada sirdoon ee adduunka ugu weyn ee Maraykanka ee CIA. dabcan ma jirto wakaalad ka weyn balse waxaa jirta wakaalad ka fiican waana wakaalada sirdoonka ee Pakistan ee loo yaqaano ISI. ISI waxaa loo soo gaabiyey Inter-Service Intelligence waa Inter-Service Intelligence oo micnaheedu uu yahay waaxda adeega ee ammaanka ama sirdoonka gudaha. sirdoonka Pakistan waa mid ka mid ah kuwa ugu waaweyn adduunka waana wakaalada ugu fiican markii sheekada basaasnimo ay timaado waxaana wakaaladan la aasaasay sanadkii 1948 xilligii uu socday dagaalkii India iyo Pakistan. wakaaladani waxaa mas'uul ay ka tahay amniga guud ee wadanka ha ahaado midka gudaha ama dibadda halista ka soo wajihi karaysa waxay sidoo kale dagaal ba'an ay la gashaa argagixisada caalamiga ah iyadoo howlaha ugu waaweyn ay qabatay ay ka mid tahay in argagixisada ay la dagaalantay ayna ka guuleysatay. wakaaladan waxay xiriir la leedahay wakaaladaha ugu badan ee adduunka waxaana hadda ka hor dagaal ay la gashay wakaalada sirdoonka ee Russia iyo sidoo kale wakaaladii sirdoon ee India kuwaasi oo wada jira iyaga oo dagaal kaga awood roonaatay waxaana ay qalqal gelisay amniga guud ee wadanka India. tan ugu weyn ee wakaaladan ay la timid waxa ay tahay qaabka sirta badneed ee aan la fahmi waayay taasi oo ay Pakistan ay ku sameysteen hubka waxgumaada ee nuclear-ka. wakaaladan waxaa sidoo kale wakaaladaha aan soo sheegnay ay kaga duwan tahay inaysan macquul ahayn in xog laga ogaado qaasatan qaabka ay ku howlgalaan ma jirto cid sheegi karta waxaana ay wakaaladani lagu tilmaamaa dowlad ka dowlad ama dowlad kale ku dhex jirta waana wakaalada ugu dahsoon adduunka. ISI waa wakaalada ugu qarashka ugu yar uu ku baxo marka aan ka hadalno wakaaladaha aan soo sheegnay sidaas oo ay tahayna waa wakaalada ugu fiican adduunka. waxaan filayaa inaad ogaateen macluumaadyo badan maanta oo aan kaga hadalnay dowlado badan iyo hay-adahooda sirdoonka waxaana tani kaga jawaabaya dhowr dad oo soo codsaday magacyada loo soo gaabiyay hay-adaha sirdoonka ee dunida iyo waxa ay yihiin. muuqaalkan mid lamid intaan ku kulmi doonaan nabadgelyo.